dumarkii waxay yiraahdeen shaqadii rag u qabtaan ba waanu qaban karnaa wariyaa lihiya leeyahay oo ma iska joogtaan baleeg hadda muqdisho waad aragtay waxa guriga ku yaal hal guri baa laga siiyay guriga hooyooyinka leeyahay inta kale waa guriga aabayaasha qodobka meel dhigta midda kale baleeg hadda wax yar baan idin sheegaya hooyo iyo xaaska iyo walaalo dumar ceeb ma leh gobtana waxaaba lagu gartaa dumarka way jecel yihiin gobtu waa la dhaqaaleeyaa dumarka laakiin de qoondadii dumarka umaad ku wareerteen nabi maxamed horta qoondadiina loo soo dhiibay soddon aniga waxaan qabaa soddon waxaan ka hadlaynay muddo dheeraan ka hadlaynay 2000 kan ka hadlaynay soddon inaan helno mana aha waxaan weydiisanayno ragga oo ka baryayno waa waxaan leenahay waa soo dhaafnay hadda waa ka soo gudubnay soddon waa ka soo gudubnay hadda waxa kaliya oo ku qadci karnaa inaan helno boqolkiiba 50 ee qoondada kitaabka miyaad ka boodeen eeg hadda midda kale eeg wax yar tusaale yar gaaban ma ogsiinba aashallaahi wali miyaad maqashay iyo xaliimallah ilaa abdullaahi baa la yiraahdaa waxa la abduqaadir miyaad aragtay firdawsa qaadir miyaad aragtay iska fariisatay guriyiina iska joogay suureerina qoondadii nabi maxamedna qaata kana caaydo cunta intaas aan ku soo gudbiyay barnaamijkan waa encyclopedia qubana la yiraahdo waa encyclopedia waxaan raacinayaa jaamacadii aad warkeeda hayseen ee IU University waa Indhacadays International University saddex nin oo ka baxday oo saddexdu ay baarlamaanka ka mid yihiin yaan maanta sheegaya haday idin ka roontahay annaga hadda jarraalaha jaamacadeeda ka baxay Indhacadays International University waxa ka baxay korneeyo waxaan u leenahay wax la yiraahdo military department baan u leenahay waa jaamacadeeda saddexdan nin ka baxday baan idin sheegaya nin waxa la yiraahdaa Cabdifataax Maxamed Cali oo xildhibaan ismaaciil laga soo doorto anaaba soo doortaba ninka nin aad wax u doorateen ma jiro facebookyada waa inaad joornaalada ku qortaan jaamacadeeda Indhacadays International University buu ka baxay Cabdifataax Maxamed Cali oo salaamaya kulli waad maqashaa Soomaad garan jaamacada inaad ka baxday day waa ka heshiisna la gashay laakiin heshiisku waan ka baxnay ummadda waan u sheegaynaa waxa kale oo ka baxay jaamacada Soomaad garan miyaan qarinaa maya waxa ka baxay nin la yiraahdo wala iska wada yaqaan daahir min jeeso bangigeena waxa maamulo 4.5 wax la yiraahdo maanta xalkeena wuxuu ku jiraa aniga hadda ma maqlin cadaana loo dhiibaayn kan gaalka ugu madow in loo dhiib waayo waxa aan ku kala baxaynaa oo kaliya oo xalaasha ah waa ayaga oo salaamay sababta ninkaasina jaamacadu ka baxay waliba ardada firfircoon baa waxa kale oo ka baxay nin kale oo la yiraahdo baleeg hadda ninkii dab yiraahdo ma afka guban ila dabku waa kuleyl dab ma yeen lama gubay waxa ka baxay Muuse Suudiye la xul haday ka raayo jaamacada ardadeedu ahaa wiilasha quruxda badan oo saxaafada oo kuwa xamarka nuur badan ayaga waa waayahay dhammaan jaamacada hadaba dadka waxaan u sheegaynaa jaamacadu inay socon doonto iminka application wuxuu marayaa 9,000 oo arday baa soo dalbaday waliba aad waxa loo soo dalbaday faculty la yiraahdo laguma dhaanay dhaqaaq faculty iyo faculty kale la yiraahdo faculty of looma dhanno faculty of jidka fadhiisa dadka fiiriyo faduul waa Indhacadays International University jaamacadaha jidka fadhiga kamid ah waxa jira faculty la yiraahdo faculty of Isbaaro waxa la soo weydiiyay fiiga jaamacada IU University waa International Indhacadays University fiigu waxa la yiraahdaa baleeg hadda fiiga jaamacada waxa la yiraahdaa garanwaa xarunteeda waxa la yiraahdaa garanwaa kala soo xiriir www.garanwa.com baleeg hadda jaamacada ardada ka baxda waxa ku garanaysaa inta badan ma qoslaan ma dhool cadeeyaan telefoonkana ma qabtaan salaam baad u soo taagiyo wuxuu ku leeyahay iska fadhi bluetooth kiis waa xiriir ilaa binaadamka bluetooth ku leeyahay bluetooth ka waa la furtaa way xidhaan ardada inta badan jaamacadeeda ka baxda bluetooth ka way xid bidar le hadigo mulahi kudeego oo qalbuura gadee dhakadaday kaneecayda cunta saasa lagu gartaa annaka jaamacadayada soo subscribe haga media subscribe indhacadays.com baad nagu soo galaysaa ila liqaa waxaan idin leeyahay wixii aniga muuqaaladayda iyo barnaamijyadayda dhammaan waxaad kala socon doontaan haga media subscribe de بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهاga media iyo mar kale waayahay markii odaygu geeriyooday isagii oo tacsidii loo fadhiyo
oo maamadii ay u saaran tahay asaydii ayaa gabadhii ay ku curatay waxay tidhi hooye imaad dhalin bal haddaa sheekada dhegaysaya hooye imaad dhalin waayahay oo shanta wiil meena kula dhalanin bay tidhi waxay tihi ilama dhalan gabadhii way dhaqaaqday way iska tagtay shanta wiil la dhalatay gabadha mid waxaa la yidhaha jubba midna waxaa la yidhaahdaa baa iyo bakooli baa la yidhaha midka kale waxaa la yidhaha hirshabeeli midka kale waxaa la yidhahdaa cadaadamareeb ka kalena waxaa la yidhaahdaa buntu darwiish shantaa wiil ayaa gabadha la dhalatay gabadhii markay muddo maqnay ayay soo noqotay eleeg hadda in yaroo waxaan dhex gelinayaa gabadhii horta laga waayey reerkiina la joog waxay la timaadda ma taqaanaa aakhirka waxay timaaddaa iyadoo xaamilo ah oo ilmo la garan waayey ay caloosha ku siido waayahay markii muddo la joogay ayay soo noqotay gabadhu waa hargeysa waxay ku soo noqotay hooyadeed maama muqdisho markii albaabka u garaacday ayay tidhi waa tuma waxay tidhi hooye waa hargeysa haa hooye waa maxay xaamilaa tahay ilmahan yaa iskale waxay tidhi hooye ma aqaano ilmahan cid iskale wariyaa allihii alla yahay oo muslima markaasaa la yaabay shantii wiil ee maama muqdisho dhashay ayay wargelisay shantii wiil baa isu yimid waxaa la yidhi gabadha la yidhaahdo hargeysaay canugan yaa iskale waxay tidhi anugu garan maayo oo waayo saydi garan weyda marna waxaan anigu joogay meesha la yidhaahdo ii sheega nairobi waayaan u hoyday addis ababa in badan baan joogay gabay in badan baan joogay sidee badda berbera shacabka soomaaliyeed idinkoo kala tashaneed u iibisaan oo kaale adigu boosaasamad igala tashatay may kalama tashan dee markaas seed iga falaysaa inaan kala tashado waxayga meesha liyaa south africa waan joogay ingiriiskana waana mur badnaa wallahi aniga meel layga raaci garan maayo waayahay shantii wiil baa shiray marka waxaa lagu shiray hargeysa waa xaamilo bal waxay dhashaynu sugaynaa hadduu ilmuhu caddaan noqdo yaa bal hadda eeg ilmuhu hadduu caddaan noqdo waa ingiriiska iyo debeyga labadaa ayaa u qoolan hadduu madow noqdona south africa iyo nairobi iyo meesha la yidhahdo dee addis ababa oo weligeedda dakana naga dhexaysay wariyaa allihii alla yahay halkaasay arrintu maraysaa waa yahay haddaba waxay isugu soo biyo shubatay hargeysaay dhabtii waa daliilan tahay dhabarkii adhaha waad ka dhuucsan tahay calooshuna dhulkay u dhowaatay oo shinkaagii dhammaa soomaalina dhammaan way ku dhawraysaa waa lagaa dhursugi dheeraa dunduma dhowr fiiqanaa kolkay dheelidana fudkii dhalada yiil dhalfiifaha intuu sii kala dhacdhaco isagoo dhambalan sawkaa dhulkii inta uu ku dhacay ciiddii dhex galay way dhardhaaran tahay ma dhaqaaqdo oo jirridduna ka dheer nafsigana ka dhowr wixii laga dhursugaa iska soo dhowaa qoladaa xamar joogtaa xoog bay ku qabsadeen somalilan oo way ka adkaadeen oo waa meel lagu qabsadeen wallaahi inaad abuurta koris tahay aan aad ugu maleeya aad leeleeda hargeysaay dhabtii waad dhimantahoo waad isdhaafsan tahay madaxana dhardhaar yaa kaaga dhacay warkaale waaba dayn laadahay wariye shaqaad ka dhigatay soo maa wallaahi haddii lagu qabto haddaad shahiidi weydid waad googuy degdeg baa lagu jarjari halkaasaad ku baktiyaa baydhafa aan watahay somalilan aad hargeysaay dhabbahan ad ku dhababaclayn xaggee buu dhacaa u ku dheelmadaa waxaa jirtay waa ay hargeysa tidhi walaalada iyo etoobiya cadowga iyaga soomaaliya horta ku ceeli hadalkaa tiri waa ay hargeysa tidhi walaalada iyo etoobiya cadowga iyaga soomaaliya adigu waxaan leeyahay waxa aad sheegaysaa ma aha wax warbaahinta iyo ummadda midna dan u ah adigana dan ku ah waxa dan ku ah waxa jira inaad sheegto annagana dan u ah bal hadalkaa u fiirsada soomaaliya dee adan markuu aamino adigii khiyaamo iminkana etoobiyaankaan aaminsanay weli iyagu waaya hargeysaay dhabtii waa aan dhowayn hadalkaa dhacaa la dhegaystayoo soomaalidu dhammaan dhakafaartayoo meel baa la dhigay ee taariikhda dhugo dhabsigana baldhow dhimanay waa dhimanay maanta waxaan ka fekerayay qaadkii watan la waayey waa kaa caddahay waxaan oqodaya intaas inaad dhaanta laakiin haddaad saan tahay aadaan uga xuma hargeysaay dhabtii waan kula dhashoo waan ku dhawrayaa waan kugu dhowahay hargeysaay dhabtii dhaanaan maqnayn miyaad dhawraysaa waad dhiman tahaye ruuxii dhegala miyuu dhoohan yahay hargeysaay dhabtii dhibaatiya colaad aan dhammaanin baan dhiraandhirinayo dhafoorkaygu yaal waad ka dherigsan tahay sidaa aan jabuuti iyo etoobiya nahay aanu noqonno ayaan anagu jeclayn maantana aanu jeclay haddaad diideen ku yar iyo ku weyna isku raacsantiin inaanaan waxba ahayn haddaad naga xishoon weydeen waa naga baqi doonta kolkay qaar dhintaan ama dhaawacmaan kama dhiidhidide waa adigii dhabtii dhaantayn jiray oo lacagta muqdisho laga soo qaada maxaa berbere lagala doonay maa ciidamada muqdisho ilaalinaya la siiyo ha isdhegatirine taariikhda dhugo
nafsigana baldhow wixii laga dhursugaa iska soo dhowaa anagu british baan lee soco aabaa indhaa ka cun waxaad ka cabsoosi garan mayna anaga ma naqananayo gp baan anoo naga wada soco aabaa indhaa ka cun anagu rag sibtaa loo dalmarmano le waxaan dhaga xanaaqaan bala gudhi lacala waar dhaqaajiniyo subscribe dheh haga media ila liqaa waxaan idin leeyahay wixii aniga muuqaaladayda iyo barnaamijyadayda ah dhammaan waxaad kala socon doontaan haga media subscribe waxa kale oon ka yaabay weli miyaad maqashay baalashle eeg hadda mas-uuliyiinta soomaalida calaamadaha lagu garta ma taqaanaa telefoon haddii loo diro ma qabtaan qaarkood wuu eegayaa wuu iska dhigayaa ma dhoolla caddaynaya adoo ordibaadu imanaysa usuul kule salaanta kaa qaadi maayo kule iska fadhiiso bluetoothkoodu waa wada xidhan yahay ninba ninku ka aftaag badan yahay buu ka mas-uulsan yahay nin baa haddaba rikoodhkaa jabiyey nin wasiira miyaad maqasho baalashle ka qabtay telefoon weli miyaad maqashay golaha wasiiradu ku jira waa nin laga yaabay waxba magacaamayna waa wasiir cajiiba oo very flexible oo kindful haddaad doonaan afka ingiriiska wax kuugu sheegay ninkaas ninuu kabaha u baalashayey ayaa yidhi wasiirkani cid walbu ka qabtaa xataa baalashu ka qaban suu yidhi baalashle aniga ii qor hadduu iga qaban waa loo qoray nambarkii buu qoray wuu garaacay kii yaraa wasiir waa ku salaamoya wasiir waxaa waaye axmedey oo baalash waaye muudee baalashkaygii iga xaday wasiir هاي أنا إيش نمبر كوجو صوتور بالش كأنا كوجو كذا نمبر كوا واحد يجو صوتور تا أو مانفاي يجو صوتور وعيال كيرين تقول سيد كلام حصل وزير كي بقول توري هذا وزير كاسين وين يقول شراي وهذا وين العجيبة إلهي حافظه سو ما ذكر إن واحد كلام دوني أنا نمد اللي وذاقه بل هداك اللي يردي ما أنت اللي يردي هراء وضد ضوضي واحد لقى ضوضي ما تقارنا هذا اللي يرد ما أنت سروال كذا عيال وليه اللي يرد ما أنت سروال كروقاته وليك هذا سمعت قال لكن واحد إنكاري بعد عادي كل كي مسويت اللي تجي سكوت لا اللي طبعا ورياء اللي سروال كده وسيد عيال وإلى هاي واسمحانه بسروال سيد عيال مساج لقشه والسروال هذا كروقاته قولي حد سمعت رقم بيل هذا عين عيبين أريد هذا ما كجد سمعت قرن أرين كلا أيضا عجيبة بنكون شيء jaamacadaha ku yaala muqdisho timaha kugu yaala ka badan weli miyaad aragtay arday jaamacadeed oo practicing sameynaya oo dariiqa baabuurtii laga xidhay weli miyaad aragtay weliga arkimays oo survey distance and direction oo chainkoodii wata oo compensation oo practicing sameynaya weli miyaad aragtay arkimays arrintan waan ka yaabay arrin kale hadaba iyaduna jirta nin baa soo istaagaya checkpoint marka waa nin la yaqaano oo dawaa in libax ka sakataabto oo magaaribi iska wataayo markaas ciidankii ilaa isaag شو أرسلنا منا نجا قاعدة برتا والله هديك الواحد كلا ذكر سالي ورا ذي واحد صار بالترتيب صو ورا ذيك سمعتين إسماعيلو والله عندي كمان سمعنا قرن ماشي بقى أحكي عيان بلاك هذا وهم مركز صباح ذي عيدا كان أمانك أنت ضعيفكم باللودة عافمات كهواي كانوا والله جميع ولا إيش بدنا علينا يا رب يا ذيك أبغى قليل عيدا كان أمانك أمر بالسيء ترتيب ما أذيره ودافتي سمعت قرني دوا كاسو إن عديس إنترناشنال يونيفرسيتي ما كبح ذي ما حد كان دافتي إيش هذا على kursigii adiga dhiigii isku marka maxaa lagu yiri ciidankeena ammaanku intaad ay ku bilowdo warhoy caafimaadka waaye taana waan ka yaabay arrin kale aan ku soo gabagabaynayaa bal hadee muuqaalkeena baa jirta